kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah Kenya oo diyaarisay 5 arrimood oo ah shirqool ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo miiska soo saaray tallaabooyinkii looga hortagi lahaa dhagarta Kenya. halkee ayay ku dambeysay xiisadii xuduudda iyo wadahadaladii laga dhaxwaday xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadyo qarsoodi ah oo saacado ka hor la shaaciyay. salaadiinka kala socda beelaha Soomaaliya oo ku shiray Muqdisho kuna dhawaaqay go'aan adag oo ku saabsan doorashooyinka dalka. miyay taageersan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya mise waxa ay garab siinayaan mucaaradka? warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobadeena kale ee aan wararkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah u saxiixay miisaaniyadda dawladda ee 2021 iyo golaha aqalka sare oo ka hor yimid dawladda Soomaaliya oo si lama filaan ah uga hadashay weeraradii saacado ka hor ka dhacay dalka Yemen. haddaba dawladda federaalka Soomaaliya ma garab istaagayay muujisay mise way ka soo horjeesatay? sargaal sare oo qaramada midoobe ka tirsan oo Soomaaliya ku daray liiska 10ka dal ee taliska ugu xun leh iyo Soomaaliya oo xil sare ka qabanaysa qaramada midoobe. qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa barnaamijkan insha Allah. waa subax Jimco ah 1 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2021. waxaa inoo curtay sanad cusub. Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu qeyrkiisa iyo barakadiisa waafajiyo sanadkan cusub, shartiisa iyo fidnadiisana uu na hareer mariyo. kii noo hagaageen noqol loo hanweyn yahay sanadkan cusubow. walaalayaal, dalka aan u duceyno si aan markaasi sidan si dhaanta uu alle inooga dhigo wadankeena, annaga oo markaasi alla ka baryana inuu nagu hadiyeeyo naguna hanuuniyo in aan ka shaqeyno sidii wadankeena aan u hagaajin lahayn oo dhibta iyo mashaqada haatan uu ku jiro aan uga saari lahayn. maanta waa maalin Jimco ah, sanadka cusub waxa uu noo curtay maalin barakeysan oo qeyrkeeda wadata. waxaan rajaynaynaa allana ka baryaynaa in uu inooga wada dhigo sida maalinta Jimcada ay u barakeysan tahay oo kale sanad barakeysan. ilaahay sidaas ayaan ka rajaynaynaa ugana baryaynaa. barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan badacdooyinka dalka dabada wada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagu ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin taasna la fahantaan fadlan nala faafiya wararkan oo gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada. mahadsanidiin. aynu ku bilowno wararkeena. Kenya ayaa diyaarisay 5 arrimood oo ah shirqool ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo madaxweyne Farmaajo uu miiska soo saaray tallaabooyinkii looga hortagi lahaa dhagarta Kenya. sida aynu ku helayno xogo qarsoodi ah aynu ka helnay ila diblomaasiyiin isla markaana qaar ka mid ah warbaahinta wadankaasi Kenya ay faafiyeen, dawladda Kenya ayaa waxa ay xoogeeda oo dhan isugu geynaysaa xoojinta. qodobka koowaad waxa uu yahay xoojinta mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda, iyadoo oo dawladda Kenya ay siinayso wax kasta oo u baahan yihiin si ay filla Soomaaliya uga saaraan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo una daciifiyaan dawladnimada hadda jirta. wararku waxa ay tilmaamayaan in dawladda Kenya oo dhawaantan qaar ka mid ah warbaahinta wadankeeda dhaqaale ku siisa sheegashada in gobolka Jubaland uu ka tirsan yahay Kenya ay haatan doonayso in musharaxiinta mucaaradka ay wax walba ku siiso sidii ay u daciifin lahaayeen dawladnimada Soomaaliya. qodobka labaad ayaa ah ee 5 arrimood ee ay Kenya maleegayso sidii dhaqaalaha ka imaanaya dalka isu tag ee Imaaraadka Carabta iyo wadamada kale ee doonaya in doorashada Soomaaliya ay lacag ku qalqalgeliyaan isla markaana ay codadka dhaqaale ku gataan ay dawladda Kenya soo geliso Soomaaliya. Kenya ayaa dhaqaalahan soo marsiin doonta Jubaland gudaheeda iyadoo oo kadib loo soo gudbin doono magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya inteeda kale. talabadan ayaana waxa ay la macno tahay in dawladda Kenya ay doonayso in wax kasta oo ay Soomaaliya ku daciifinayso dawladnimadeeda isla markaana iyadu isku hoos keenayso ay samayso. Kenya oo kaashanaysa Imaaraadka Carabta iyo dalalka kale ay isku danta yihiin ayaa doonaya in ay Soomaaliya u dhiibaan madaxweyne iyaga daba dhilif u ah oo sida ay doonaan ay ka yeeshaan. qodobka saddexaad ayaa ah in dawladda Kenya ay qaramada midoobe wadamada reer galbeedka Mareykanka, Ingiriiska iyo dawladaha waaweyn ee caalamka ay u gudbinayso dacwad ka dhana madaxweyne Farmaajo oo ay ku tilmaamayaan qaswado siyaasadeed oo aan gobolka Geeska Afrika xasiloonidiisa u wanaagsanayn. Kenya ayaa arrimahaasi oo dhan uga gol leh in ay suurad xumayso madaxweynaha dalka iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaa laga yaabaa in dad badan oo haatan dhageysanaya ay u arki karaan in madaxweyne Farmaajo
aan markaasi taageerayno ama aan isaga difaacayno, laakiin ma aha hadalku sidaa ee waxa uu fariinta Kenya ay dirayso macnaheedu yahay in madaxweyne kasta oo yimaado Soomaaliya ay sidaas u sumcadilaan isla markaana ay farmaajo iyo kuwa ka dambeeyaba ka dhigaan kuwa iyaga hoos yimaada, arrinkaas oo ah wax aad markaasi looga fogaado. musharaxiinta mucaaradka xitaa haddii midkood uu yimaado villa Soomaaliya, inagu waxaan had iyo jeer difaacaynaa sharafka madaxweynenimada Soomaaliya iyo sidoo kale qarankeena Soomaaliya. waxaan ka soo horjeednaa in dowladda Kenya ee cadowga nala ah ay markaasi dowladnimadeena iyo mustaqbalka ummadeena ay hoos u dhigto. qodobka afraad ayaa ah taageerida maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland oo ay doonayso dowladda Kenya inay xoojiso kuna taageerto siday u istaagsanaa lahaayeen mowqifyada ay haatan taagan yihiin ee ku aadan doorashooyinka isla markaana loo daciifi lahaa tabarta iyo awoodda ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya. qodobka shanaad ayaa ah in la dardargeliyo dowladda Kenya ay xoojiso arrinka dagaalka xuduudda maadaama dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay maalmihii u dambeysay ka cabsanayeen guddiga kormeerka ah ee dowladda Djibouti u soo dirtay, iyadoo Kenya ay xaalkii qaboojisay maalmaha ay guddigaas sameynayaan korjoogteynta. haddaba madaxweyne Farmaajo tallaabooyinkaas ka warhelay ayaa qaaday dhammaan tallaabooyin kuwaasi lidib. waxa uu madaxweynuhu ka shaqeynayaa in mucaaradka la soo dhaweeyo oo aan markaasi shisheeye loo gacan gelin. sidoo kale ila ku dhow villa Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynuhu kol horeba ka gaanshaantay in wax dhaqaalaha la soo geliyo gudaha Soomaaliya, iyadoo dhawaan gobolka Gedo lagu qabtay lacag ka timid Kenya oo la doonayo in gudaha Soomaaliya la geliyo. sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo haysta saaxiibada dalalka la ee Qatar, Turkiga iyo Ethiopia ayaa waxa uu ka gaashaamanaya dacwadaha ay dowladda Kenya u gudbinayso dalalka caalamka. taageerada maamulada ayaa loo maleynayaa madaxweynuhu inuu qorshe ka dejisto oo ah in uu soo dhaweysto madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland. dhinaca kale aaga xuduudda ayuu madaxweynuhu uusan doonayn oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida dad ku dhow sheegeen in dagaal uu isagoo bilaabo maadaama xaalad dagaal uu dalka u keeni karo in doorashooyinkiisu ay dib u dhacaan. si kastaba ha ahaatee Nairobi ayaa sameynaysa wax kasta oo ay ku curyaamin karto dowladnimada Soomaaliya, arrinkaas oo la rabo in ummadda Soomaaliyeed ay si taxadar iyo markaasi ay ku dheehan tahay feejignaan sare ay markaasi uga fogaadaan ugana dheeraadaan wax kasta oo dowladnimadooda khatar ku noqon kara. halkaas aad naga daawanaysaan waa janalka Warqaa TV, barnaamijka wararkii ugu dambeysay ee Soomaaliya ayaan idin soo gudbinaynaa. sanadkan waa sanad cusub ee 2021 ayaa la galay. waxa aan eebaweyne ka baryaynaa in sanadkan uu nooga dhigo sanad bashbash iyo barwaaqo ah. dhanka kalena magaalada Muqdisho waxaa ku shiray salaadiin iyo waxgarad kala duwan oo ka socda beelaha Soomaaliyeed. waxaa ka mid ah salaadiinta ku shiray Muqdisho oo aan hore looga baran boqorka beelaha Daarood, boqor Burhaan, boqor Muuse, kaas oo ka hadlay xaaladda doorashooyinka dalka iyo siyaasadaha cakiran ee magaalada Muqdisho ka jira. sidoo kale waxaa ka qayb galay ugaaska beesha Abgaal oo ka hadlay xaaladda dalka uu ku jiro. ugaasyadan iyo salaadiintan ayaa sheegay in marka hore loo baahan yahay in maqaamkii magaalada Muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo oo 13 sanatar ee golayaasha baarlamaanka ay meel mariyeen sida ugu dhaqsiyaha badan loo ansixiyo loogana shaqeeyo sidii magaalada Muqdisho ay ku yeelan lahayd matalaad. odayaashan ayaa dhinaca kala sheegay in dalka Soomaaliya uusan u baahnayn rabshad iyo dagaal ay ku baaqaan dhinacyada siyaasadda isku haya, isla markaana markasta laga soo horjeesto wax kasta oo dalkan dib u dhigaya. dhinaca kale madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qalinka ku duugay markaasi miisaaniyadda rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ee 2021 ay yeelanayso. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku saxiixay miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya sanadka 2021 taas oo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay markaa ku shaqeyn doonto maalmaha iyo bilooyinka soo aadan. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa la sheegayaa in uu markaasi miisaaniyaddan saxiixay iyadoo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aysan ogoleen. baarlamaanka aqalka sare gaar ahaan golaha aqalka sare ayaa la sheegay in ay ka soo horjeesteen tallaabada uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku ansixiyay miisaaniyadda 2021. in miisaaniyaddan la ansixiyo waxa ay gacan weyn ka geysanaysaa in xaalka doorashada iyo guud ahaan howlaha la xiriira doorashooyinka ay fududaadaan. waxay sidoo kale tallaabadan qayb ka tahay arrimaha deen cafinta ee dowladda Soomaaliya u socda.
ugu dambeyntiina Soomaaliya ayaa ka kowda bishan oo maanta ku beegan ku biiraysa golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay balse arintan lama soo wada dhaweynin iyadoo uu qareen caan ahi uu Soomaaliya ku daray 10 dal taliska ugu liita uu golahaas ku biirayo. Helad Kunura oo ah qareen Canadian ah iyo qoraa isla markaana agaasime ka UN Watch ayaa waxa uu sida ku tilmaamay in Soomaaliya oo xubintaas muhiimka ah helaysa ay ka mid tahay 10 dal ee xagga xuquuqul insaanka ugu liita. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo ka daawanaysan channelka Warqad TV tan iyo kulanteena dambe saaxiibayaal nabadgelyo.